marka madaxweynaha shirka u baaqaya waa kee madaxweyne farmaajo waqtigiisa waa dhacay cid madaxweyne u yahayna ma jirto waa musharax halkaas ka sharxo anigu haddaan hadda ku baaqo shir ma Soomaali ma imanaysaa markii afraad ayuu shir isugu yeeray madaxweynaha muddaxileedkiisu ilaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkaas ayaa looga hadli doonaa doorashooyinka dalka oo muran badan uu ka taagan yahay iyadoona madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay si weyn ugu soo horjeedaan hannaanka iyo habka ay wax ku wajahayso dowladda oo mandatekeedu uu ka ilaalay madaxweynaha muddaxileedkiisu ilaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay qoraal uu soo saaray laguna baahiyay beeshka Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 22 bishan oo ku beegan maalinka Isniinta ah shir isugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo sidoo kale madaxda qaranka waxaana shirkaasi looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka dalka iyadoona kal hore beesha caalamka oo lagu tilmaamay inay yihiin beesha lixaad iyaguna ay ku baaqeen shir kale kaasoo looga hadlaya arrimaha doorashooyinka isla markaana uu ka dhici doono xarunta Xalane baaqiyo kala duwan ayaa laga soo saarayaa oo ay ugu horeeyaan shacabka ku nool magaalada caasimadda Muqdisho haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan caasimadda ayaa iyagu sheegay in dalka madaxda qaranka iyo maamul goboleedyada ay u horseedaan doorasho wada ogol lagu yahay ayna ku qanacsan yihiin dhammaan saamileeda siyaasadda dalka waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan maamul goboleedyada dowladda dhexe ay ka wada shaqeeyaan sidii doorasho wada ogola dalka ay ugu dhici lahayd haddaba waa kuwan iyagoo ka hadlaya waxaan ugu baaqayaa anaga shacbiyada Soomaaliyeed haddaan nahay in dalka laga fikiro dadkana laga fikiro la sameeyana ma aragtay aragtidan hadda ay ku taagan yihiin mid ka duwan in ma aragtay wax la iska maqlo shacbiyada danta Soomaaliyeed la fiirsho danta guudna in ma aragtay la isku wada yimaado dantoodana dib ay u dhigtaan dhihi lahaa aniga ahaan saasan ugu baaqayaa marka madaxweynaha shirka u baaqaya waa kee madaxweyne farmaajo waqtigiisa waa dhacay cid madaxweyne u yahayna ma jirto waa musharax halkaas ka sharxo anigu haddaan hadda ku baaqo shir ma Soomaali ma imanaysaa anigu ila mid yahay saaka waa taa xalane lagu shirayo ee lagu heshiiyey ha ka qayb galo cidii doonaysaa doorasho ka qayb gasho shirka xalane ka dhacay shirka xalane la tago doorashada la sameeyo halka laga dhawaaqo laakiin dawladdu horay u socon horayna waa u socota insha Allah Soomaalina waa barwaaqoobi darahoodayna gaari cid laga hibaysan hayana danta Soomaaliya ma jirto dawladda tanna meel fiican bay xaaladeedu maraysaa dhan walba hadii laga fiiriyo adduun xiriirkiisa iyo dalka Soomaaliya gudihiisa intaba dawladana waa shacabka Soomaaliyeed waa taageersay waxa muhiim ah in Allah ay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay isla fahmaan fahmeen iyadoo laga duulaya habraaci iyo hanaankii doorasho ee lagu heshiiyay 17 September iyo kii farsamo ee Baydhabo 15 ilaa 16 lagu soo gaaray guddiga farsamo oo soo xaliyeen qodobadii la isku hayay oo ka yimid dooda ka soo noqday heshiiska 17 September waxay la tahay in kaas uu yahay saldhigga maxaa la ii sheegay laga duulaya ee doorasho iyo dhamaystirkiisu inuu ka yahay kaasna cid kasta hadii heshiiskaas uu dhaco oo la isku afgarto oo maamul goboleedyada dawladda federaalka isku afgartaan cid walba way ku qasban tahay inay qaadato taayada waayo waa midka kaliya maaragtay saldhigga oo ah oo la aaminsan yahay oo lagu heshiiyay maamul goboleedyada hadii yihiin oo baarlamaankii la horgeeyay baarlamaankii labadiisa aqal oo ansixiyay ummadda Soomaaliyeedna ay taageertay sidaas darteed marka waxaan dhihi karaa waa halka arrin ee maaragtay qolo walba ay ku qanci karto in la waafajiyo heshiiska 17 September iyo kii guddiga farsamada Baydhabo 15 ilaa 16 ay ku soo gaareen oo lagu xaliyay khilaafaadkii ka soo noqday 17 September ee heshiiska la gaaray kaas baa saldhig bays u ah waa markii afraad uu madaxweynaha muddaxileedkiisu ilaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shir isugu yeero madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir shirkaas oo looga hadli lahaa ama lagu dhameystiri lahaa heshiiskii 17 September ay wada gaareen maamul goboleedyada gobolka Banaadir loogana hadli lahaa arrimaha doorashooyinka balse muddo 3 jeer oo ka horeysay
ayaa dib u dhac ku yimid shirkaasi iyadoona maamul goboleedyada qaarkood ay sheegeenba inaysan ka qayb galaynin shirkaasi sababo jira awgeeda balse madaxweynaha mudxuleedkiisu ilaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa qoraal xalay uu soo saaray waxa uu ku shaaciyey in 22 bishan uu ku beegan maalinka isniinta shir ay isugu imaanayaan madaxda qaranka ama ay isugu yimaadaan madaxda qaranka maamul goboleedyadii gobolka banaadir lamana oga sida uu u dhici doono shirkaasi uu ku baaqay madaxweynaha balse dad far badan iyo dadka falanqeeya siyaasadda ayaa qaba in shirkaas uu dhici doono uu la mid noqon doono shirarkii hore ugu baaqi jiray cabdifatax muumin 5TV abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus